dhageysiga dacwadda kiiska Caasha Ilyas oo muddo 8 cisho hor yaalay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta maxkamaddu waxay ku riday dil toogasho ah 3 ruux oo kamid ah 10 eedeysane oo kufsigii iyo dilkii Caasha Ilyas loo haystay. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal Sheekh Cabdinuur ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ee ku aadan kiiska Caasha Ilyas. Abdi Fatah Abdirahmaan Warsane iyo Abdi Shakuur Maxamed Degal iyo Abdi Salaam Abdirahmaan Warsane saddexdaa uu yiri uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo cidiyihii gabadha dhacaankeedii iyo cidiyaheedii iyo iyaga dhacaamadoodii oo la soo baaray Nairobi lagu soo baaray cadaymihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen maada ay cadayntaas muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday dilay qafaashay dhibtaa u geystay ay yihiin markaanu qoraalada akhrinayna ay saa muujinayso inay yihiin saddexdaasu nimanka marna aan laga saari karin ee sameeyey dhibtaa ee Caasho ku sameeyey inay yihiin maada cidiyihii iyo taabashadii waxa la yiraahdo dhacaankii laga helay xukunkii maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaas eedeysane oo ah Abdi Fatah Abdirahmaan Warsame iyo Abdi Shakuur Maxamed Degal iyo Abdi Salaam Abdirahmaan Warsame dil toogasho ah oo dawladdu ay ku sameynayso dilkaas ay u xil saaran tahay inay fuliso. sidoo kale garsoorku waxa uu sheegay in uu xukunka ka furan yahay racfaan muddo bil ah. waxa kale oo ay maxkamaddu fasaxday 7 kale oo kamid ah eedeysanayaasha oo ay ku tilmaantay kuwa aan dambi lahayn. 7 kale laakiin uusan keenin eediisana uu ku ururiyay maadaama wax cadayma u hayn in la dhaariyo maxkamadduna ay dhaarisay. maxkamaddu waxay amraysaa lambarka 4 ilaa lambarka 10 xorriyadooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan.